ololo ballaaran oo lagaga shaqeynaya hagaajinta nadaafadda iyo bilicda magaalada Og ayaa maanta si rasmi ah looga biloobay xarunta degmada Og ee gobolka Saraar. Ololahan ballaaran oo iska kaashanayaan shacabka ku dhaqan degmada Og iyo hay'adda DRC ayaa waxaa maanta si rasmi ah looga bilaabay guud ahaanba xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Og. ololahan oo lagu gubayo qashinka buuxdhaafiyay wadooyinka magaalada ayaa waxa aad uga qayb qaadanaya shacabka degmada Og, ururka haweenweynaha qaranka ee Norway degmada Og, maamulka degmada Og iyo hay'adda DRC. ugu horreynba waxaa halka ka hadlay gudoomiyaha degmada Og Cabdinaasir Cabdisalaan Ibrahim Shire oo tilmaamay in ololahan lagaga shaqeynayo nadaafadda magaalada isla markaana lagu muujinayo bilicda magaalada. waxa kale uu mahadnaq aad u soo jeediyay hay'adda DRC oo iyadu qayb weyn ka qaadatay ololaha nadaafadda laga bilaabay maanta degmada waxaan halkan iyagana ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer Og ee dumarka ah haweenka u badan ee sida xushmada iyo wanaagga ku jiro muujay inay deegaankoodii ay ka shaqeeyaan oo ay qashinka ka nadaafadiyaan. mashruucan waxaa fulinaysa oo uu ka soo baxay hay'adda WFP waxay u soo wakiilatay hay'adda DRC. waxaa kaloo madasha ka hadlay odayaasha degmada Og iyo qaar ka mid ah ururka haweenweynaha Norway ee degmada Og oo iyagu tilmaamay in loo baahan yahay in la iska nadiifiyo qashinka isla markaana la dhiso bilicda magaalada. hay'adda DRC oo mahadnaqaya iyo hay'adaha kaleba inay nala shaqeeyaan inay wax nala qabtaan degmada. waxaa kaloo mahadnaqaya maamulkeega noo soo qabtay ee degmada ka jira. hay'adaha iyo DRC ba mahad ballaaran baan u jeedinayaa hanala shaqeeyeen waxa noo qabteeno sida ay qashinka noo iska rogooyin wax kasta oo loo baahan yahay qashinkii magaaladii baa la geliyay qarab wax badan baa naga maqan. si kastaba ha ahaatee waxay dhawaanihii u dambeeyay gobolka Saraar ka socday ololaha nadaafadda iyadoo la isweydiinayay inay ka dhex baxday 45kii cishe madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland cilaamiyay in hal mar la qabto. Maxamed Bashiir Nuur, shabakada caalamiga Aynaba News, Aynaba.